mudanayaal iyo marweyn meel walba aad dunida naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijka aan uga hadleyno 15 wadan ee Afrika ugu horqaatay xorriyadda. Laba ka mid ah lama gumaysan, kuwaas oo kale ah Ethiopia iyo Liberia. 13 kale waxaa ka mid ah Soomaaliya. Nala daawada, soo dhawaada. Egypt ama Masar sida u taqaanidba waxayna qaadatay xorriyadda bishii 28/1922 waxayna xorriyadda ka qaadatay gumaystihii Ingiriiska oo waagaas xukumayay. Kaalinta labaad waxaa galay Liibiya, waxay qaadatay bishii 12aad 1951 waxayna ka qaadatay xorriyadda Itaaliya ama Talyaaniga. Kaalinta saddexaad waxaa galay Suudaan, waxay qaadatay xorriyadda bishii 1aad 1956 waxayna ka qaadatay Ingiriiska oo markaas xukumayay. Kaalinta afraad waxaa galay Morocco, waxay qaadatay xorriyadda bishii 3aad 1956 waxayna ka qaadatay gumaystihii Faransiiska ee waagaas xukumayay. Kaalinta shanaad waxaa galay Tunisia, waxay qaadatay bishii 3aad 1956 waxayna ka qaadatay gumaystihii Faransiiska ee Kaalinta lixaad waxaa galay Ghana, waxay qaadatay xorriyadda 6dii bishii 3aad 1957 waxayna ka qaadatay gumaystihii Ingiriiska ee waqtigaas. Kaalinta toddobaad waxaa galay Guinea, waxay qaadatay bishii 10aad 1958 waxayna ka qaadatay gumaystihii waqtigaas ka talinayay ee Faransiiska. Markaas ay xorriyaddeedii heshay. Kaalinta sideedaad waxaa galay Cameroon, waxay qaadatay bishii 1aad 1960 waxayna ka qaadatay gumaystihii Faransiiska ee waqtigaas ka talinayay Cameroon. Kaalinta sagaalaad waxaa galay Senegal, waxay qaadatay bishii 4aad 1960 waxayna ka qaadatay gumaystihii Faransiiska ee waqtigaas ka talinayay Senegal. Kaalinta 10aad waxaa galay Togo, waxay qaadatay bishii 4aad 27/1960 waxayna ka qaadatay gumaystihii Faransiiska ee waqtigaas ka talinayay Togo. Kaalinta 11aad waxaa ku jiro Madagascar, waxay qaadatay bishii 6aad 26/1960 waxayna ka qaadatay gumaystihii Faransiiska ee markaas ka talinayay Madagascar. Kaalinta 12aad waxaa ku jiro Democratic Republic of Congo ama sida u taqaanid DR Congo, waxay qaadatay bishii 6aad 30/1960 waxayna ka qaadatay gumaystihii Belgiumka ee markaas ka talinayay Congo. Kaalinta 13aad waxaa ku jira Soomaaliya waqooyiga waxaa gumaystay Ingiriiska, wuxuuna xorriyadda siiyay bishii 6aad 26/1960. Koonfurtana waxaa gumaystay Italy ama Talyaaniga, wuxuuna siiyay xorriyadda 1dii bishii 7aad. kadibna way midoobeen, sidaas ayayna xorriyaddoodii ku qaateen ayagoo wadajir ah. waad ku mahadsantahay sida fiidiyowga u daawatay. Ha ilaawin inaad fiidiyowga like garayso ood la wadaagto asxaabtaada. Si aad nagu xidhnaato, fadlan ha ilaawin inaad taabato butonka subscribe.